Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteydaan jeclaa meel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada janaalkeena Ikram Beauty New. Haddii anagu cusub tahay soo dhawow, haddii hore noola joogtana sidoo kaleeto subscribe-kana daawo, gambaleelkana daawo si aad ula socoto fiidiyoyaasha xiga insha Allah. Asxaabteyda maanta waxaan sameynaynaa timaha aflaaqada leh si looga jaro. Fiidiyo hore aan soo geliyay ayaan ku dhahay ma soo geliyaa, marka asxaab badan ayaa i dhahday waa rabnaa insha Allah. Asxaabtii ayaa marka u soo geliyay timaheeda waa timaha oo kurul hayrka marka la kala jiido u jeedin dhabarka sinta agteeda tagaysaa, haddii la daayana way isku dhagaysaa ayadana, marka way isku laalaabanaysaa. Marka timaha kala baxsan ayaa ugu qurux badan, laakiin timaha kurul hayrkana ayagana qurux gooni ay wataan. Marka timaheeda way u dabnaayeen, isbuucii u xirxirnaayeen, waa furfuray inaan u dhaqaarabay. marka aflaaqada ayaa ka jaraaya. Waxaa sameynaysaa timaha waa duuduubeysaa, duuduub yaryariis oo duuduubeysaa qayb yaryariis haddii aad qaybta badiso hadhow ma arkaysid timaha wixii oo markaas aflaaqa kale hay wixii kaleeto. marka duuduubkan yaryariis ayaa laga dhigaa. marka yaryariis ka dhigto tinta gadaal ayaa u celinaysaa, marka sidaas ayaa u jaraysaa. markaa jarto kadibna waa shaleynaysaa, waxaa fiirinaysaa inay tinka soo ha go'day in kaleeto. timaha markaa shaleynayo hasidihina xoog ay ugu shaleynaysaa, kaamirada waaye. Fiidiyooga waa ordisiiyey marka si oo sanacadku oo iyo fiidiyooga waqtigu dheeraanin. haddii timaha xoog lagu shaleynayo waa ilayd baby yar waa 6 sano jirta. marka timaha wajida waxa sirka bas ka soo go'ay. timaha haddii aad qalad u jartid markaa shaleynaysid tin badan ayaa dhaxda ka soo go'ayso. markaa jaraysid tartiib iska fiiri, qayb marba qayb ayaa jaraysaa marka aflaaqada. marka qaybta sidaan ayaa yeelaysaa, si fiican u fiiri, timaha gadaal ayaa u celinaysaa, xadda sariirta geesaa ka soo baxda bas ayaa iska jaraysaa. xadda marka haddii aad tin qalad u laabto oo iska jarto hadhow timahaadu way kaa go'ayaan. marka si fiican iska fiiri, xadda sariirta ayaa ka rabsaa. waxaa laga rabaa inay kaa soo dataan timaha oo marka nimanka laga jarayo waa aragtay, oo marka tinta laga jaro tinta kaleeto oo la hoolayo yaryarista ee soo dadaadanayso tas camal inay kaa soo dadaadataa la rabaa, ma ahan tinta dhan inay soo gogo'do. wax sir risk waay. marka hadda wax sir risk inta gacanta ku shumeeyay tusi karo because saliga u dhigay hadhow saliga leelaga hurgufaya. marka sidaas ayaa marka wax yaryariis leh ka go'ayo. tin yar oo qalad ah hadda iska goyso timahaada ay hadhow ka soo dhaxbaxayaan. waa isla fahanaya oo maleynaya. aflaaqada qaar waa la gubaa, dadka qaar way gubaan, laakiin mujida ilaa iyo dhamaadka sidaas ay u jaraysaa. foodane afka hore gooni ayaa iskaga jaraysaa wax yar dhab timaha dhan si iskula siman. haddii aad professional oo yacni saaluuno waaweyn oo casri oo professional aad tagto moogi, laakiin saaluumankeena waa taqaaniin timaha dhan ayaa la isku qabanayaa, salka dambe ama ruf lagaa siinaya, weliba wax weyn ayaa laga jaraya. tintii dhexda aflaaqada laheedo iyo ayadana muslan marka gadaal bas laga jarayo. marka fooda yarta ayaa badanaa la iska jaraa, weliba kala bar ayaa laga jaraa. hadda foodas wax yarka oo dufdufta naqata bas ayaa ka jaraya. ujeedin inta siraystaana bil gudihiis ayuu ku soo noqonaysaa haddii aan nafaqo iyo saliid fiican marsato. ujeedin hala sirka bas ayaa ka jaray, timaheedina iskula simeen. marka hal inaa u jartid ayaa fiican. tinta dhan isku qabatid oo lagaa jaro tin fiican ma badana. annaka taas bas ayaa naqaanaa, wax aflaaqa ka baxayna malaha. timaha dhan markaa ka wada jaray oo midba mar aan ka jaray inta sirta bas ayaa ka go'do. ujeedin ma badna, wax weyn ma ahan. ujeedin waxa siriska waay. marka intaas bil gudihiis sida ugu soo noqon kartaa. marka waxaa u baahan tihiin ukun, mayonnaise karootiga la marsado waaye oo ansalaatadii lagu darsado. saliidan aniga ayaa sameeyay, saliid Ikram Beauty waaye, miracle hair oil lahaa 12 saliid ayaa ka sameeyay. saliida masha Allah quality-geeda ay u fiican tahay, nimanka bidaarta leh wax oo dhan ay u fiican tahay. gabadha timaayada ay ugu dheeraatay. marka nafaqada ayaa sameynaysaa oo ku dhex daraysaa saliidan hadhow timaha oo ku masaajeynaysaa. masha Allah timahaada bil gudihiisa halay ka go'ay waa kugu soo laabanayaan. ujeedin mayonnaise qofka tintiis inta la eg tahay ay qiyaasanaysaa ayada. marka intaan ay u qiyaasay adag ku yaraata dana gooni ay u qasaya dhimana. marka timahaada mayonnaise aad iyo aad ugu fiican yahay, ku bixinayo ku dheeraanaya. ukunta sidoo kale protein waaye, timaha aad ay u dheeraysaa oo nafaqaysaa. ukunta isbuuciiba waxaa loogu talagalay inaad marsato hal mar, bishiiba hal mar ama 2 mar
haddii aa bishii 4 week waaye 4 week aa wada marsato timaha borotiinka ayaa ka badanaya way qalalay way jajabaysaa marka bishii 2 mar bas ukunta ku dar 2 mar oo kaleetana mayonnaise kaligiisa marso waa isla fahanaa umaleynaya saliidana waa ka 2 qaando ka camal ayaa ku dareysaa saliida waa ujeedin quality-geeda maasha Allah inta tijaabisay ayaa taqaan saliidayda ukuntana waa hal xabo haddii timahaaga badan yihiin dhaxda ka badan yihiin 2 kuwan ka dhigi kartaa haddii timahaaga caadi yihiin hal kuwan ayaa isticmaali kartaa malab ayaan ku darayaa malab nadiif oo saafi ah waaye oo Soomaaliya laga keenay okay maasha Allah intaas ayaa isku garaacanaysaa waa u marinaysaa hal saac camal ay ku joogaysaa dhac waa ka dhaqaysaa sida loo marinayo hadda waan tusaya insha Allah fiidiyoga bilaw ilaa dhamaad si fiican u daabo si aad uga heshid oo u daabatid oo timahadana maasha Allah kugu naqdaan aflaaqada adiga 6 balba hal mar hadii aad ka jarto timahada maasha Allah 6 bal halkaas maalin waa dhibaatoonaysaa timaha marba meel ayaa xiraysaa marba meel ayaa ka jaraysaa laakiin waa ku faa'iideysaa 3 bil mar haladii aad rabto saaluunyasha ayaa la aadaa saaluunkana saaluun fiican oo professional ah oo ku takhasusay timaha aflaaqada inuu ka jaro waa wiliba markuu jaraayo hal tin waa inuu qabtaa sidaas kuskuska camal ay ugu qabanaya laftirkiisa haddii laakiin qof ku dhahdo timaha dhan ayaa isku wada xire kadib aad dabada gadaal rif ka siinaya timaha taas aflaaqa kama jirin hana aaminin insha Allah soo marka waa kana diyaaraya inuu noqotay nafaqadii hadda waxaa sameynayna timaha ayaa bebidii u marinaya marka insha Allah daawasho wacan sida ugu marinaya okay bebida watana waa keenay way nacabta timaheeda in wax lama mariyo la taabto laakiin si la yeelahay timan dheer oo iskarabta timaan in wax loo mariyo ma rabto haddii aad timaha sidaas aan ma kala dhahooyo waxa ay sheegeen taleefanka ay ku bubsiinooya haddii saas aa ugu tataaban lahaa wab urdileed basaacan meesha dhamay ka caarar leed marka tinta sidaas ay sameynaysaa hafaafka ayaa u qabanaysaa waxa u marinaysaa marka nafaqada madaxa inaa ku masaajeyso ayaa laga rabaa timahada nafaqada haddii aad barto maasha Allah isbuuci hal mar nafaqo mariso nafaqada jecesha aad marsato timahada ku baxaya markay ka qalalaan batar mise saliid aad ku masaajeyso oo dhaqdo laakiin saliid xadaysa timahayga waa iga qalaleen madax xanuun ayaa ugu dhacay hal mar saliid laga buuxinayo wax ma ku taraya marka waxa fiican timahada inaa wax yar oo saliid ah lafta aad ku masaajeyso tintana wax yar aad marmariso oo tinta fooda wax yar ka marmariso laakiin haddii aad tiraahdo meesha madaxa lafta ayaa saliid ka buuxinaya tinta way ka ruqruqaysaa marka looguma talagelin farahaaga wax yar saliid ku tataabo timaha ku masaajeyso intaas ayaa kugu filan timaha korkoodana wax yar saliid marmari insha Allah anaga lafta ayaan saliid ka buuxinaa sidaas ayaan sameynaa wasla faanaya maleynaya ku jida qayb mar ayaa waxaan marinayaa nafaqadii kadib waa ku masaajeynaysaa si fiican ayaa u masaajeynaysaa sidaas ayaa dhahaysaa si ay u dhex gasho qaybta kale ayaa macna qaybta kale ayadana insha Allah sidoo kale ayaan ku sameynaynaa bacay ugu xiraysaa hal saac ayaa ku joogaysaa kadibna waa ka dhaqaysaa shaambo iyo condition dobi shaambo because dobi shaambo la-aan badanaa haddii aad dhaqatid timahaaga way qalalayaan wayna kaa jajabayaan marka dobi shaambada timaha waxay kaa caawinaysaa inay soft ku noqdaan hadhow marka shaleynaysid aad tartiib u shalaysid haddii aad timahaaga ay jilcan yihiin dobi shaambada timaha fooda hore laga mariyaa madaxa lafta lagama mariyo haddii timahada wax yar adag yihiinna ayada dhan ayaa la wada marsadaa marka ujeedina malayn nafaqadii waa ku dhameynay si fiican ugu masaajeynay adiga hal jimco mise hal maalin aad isbuuci hal maalin ka sameyso sabti ka sameyso axad ka sameyso adi maalin uu sameyso maalintaas markaa sameysato timahaadiina waxay kuu noqonayaan maasha Allah nafaqadaadana waa timahaad ma ka ilaabaysid laakiin haddii aad sameysid
bishiiba hal maalin aa wax marmarisid oo saliidba maalin aa ku wareegtid oo dhahday haa saliid heblaaya soo baxda dhac, saliid kalaa soo baxda dhiiw, saliid kalaa soo baxda, soo madaxii madax oo sitamaan iska xirnaahayo oo saliida hal oo la raadinayo hal maalin oo intii la mariyo la shanleeyo oo sidiis loo xirayo haddana tan inta kaaga baxaysaa. saliid macsaraba haddaa marsata xataa haddii timaada habeen kasta aa shanlaysid oo subaxina intaa duuduubtid oo subaxina shanlaysid timahaada way baxayaan. dadka timaha u baxay sidaas kuogo. dad ayaa waxay aaminsan yihiin haa heblaayo tima ma jecla timeedana oo baxeen. No, waxay kaaga fiican tahay markay shanlaynayso mise wax ku qabanayso waxay sameysaa oo adiga ay kaaga roon tahay. maahan tim iska baxdo. timaha waxay u baahan yihiin dadaal. qof waxaa arkaysaa timihiis ku dadaalo oo shanleeyo because markuu shanlaynayo wuxuu u shanlaynayo maxaa kaa galo xoog meesha bixi lahayd timihii dhan waa riftay nafaqa ma marinay